السلام عليكم soo dhawaada mar kale maanta muuqaalkan waxaan ku eegi doonaa wadada ugu khatarsan adduunka taasoo dadka ku dhintay ay trabeeleen waliba si joogta loogu dhinto haddaba ninkan ayaa maanta wadadan soo eegi doona oo soo maraya isagoo xataa inta uu safarkiisa ku guda jira la kulmi doona dhacdooyin dad waxay ku noqdeen wadadan sida aynu muuqaalkan ka arki karno qofkan la sido wadadani waxay ku taalaa dalka Pakistan sida muuqatana dawladda dalka Pakistan meeshan way dayacday waayo laga soo bilaabo waqtigaas buurtan wadada laga sameeyay oo dadka buurta ay wadadani ku taalo oo ah buurta sagaalaad ee adduunka oo dhan ugu weyn oo lagu magacaabo Nanga Parbat ay samaysteen ilaa waqtigaasna wax dib habayna laguma sameyn oo wadadu waa iska sideedii haddaba ninkan maanta soo booqanaya si uu soo gaadho deegaanka lagu magacaabo Baltistan Gilgit ee dalka Pakistan waqti aad u far badan ayay ku qaadatay safarkiisa oo meeshan ku yimaanayna waxa uu ka bilaabmay magaalada caasimadda oo dalka Pakistan Islamabad halkaana bas ayuu ka soo raacay si ay u tagaan qaybta kale ee Pakistan ee musafarabad lagu magacaabo baskan markay waxoogaa soo saarnaayeenna waa la yara istaajiyey nin kamarad wata ayaana soo koray oo askariya kaasoo dadkao dhan ka codsanayay inay wixii maaska xidhan maaska iska qaadaan si uu duubo wejiyadooda baska markuu ka soo degana waxay soo raacayaan gaari kale oo brifada si ay u tagaan meeshii ay ugu dambeyn doonayeen waqtiga ay ku gaadhayaanna waa 15 ilaa 16 saacadood safarka guud ahaan marka la isku darana 24 saacadood ayuu qaadanayaa wadada ay soo marayaanna waa wadada Karakoram Highway lagu magacaabo taasoo loo dhisay sababo ganacsi dhismeedana waxaa iska kaashaday Pakistan iyo China sanadadii 1960 ilaa 70-yadii waxayna isku xidhaa caasimadda Pakistan ee Islamabad iyo sidoo kale magaalada kale China ku taala Kashgar lagu magacaabo wadadan ay ku sii socdaan waa wadada ugu khatarsan adduunka waqtiyadii la dhisayna waxa naftooda ku waayay in ka badan 1000 shaqaale oo meesha ka shaqeynaya ma dhisayay wadadan markuu roobku sidoo kale ka daayo aad bay khatar u sii noqotaa buurahana waxa ka soo dhacaya dhagaxaan iyo ciidis wata oo wadada xidhay mararka qaarkood sida imka ninkan iyo ku dhacday bilowgii safarkooda iyagoon wax aada sii soconba waxa lagula taliyay in dib iska noqdaan maadaama aan arkana gaarigan ka horreeyay ee weyninu meesha ka joogsaday oo buurta ay ciid iyo dhagaxaan ka soo daadanayso laakiin maadaama ay bilowyiin oo aan halkan laga noqon karin ninkii ka horreeyay kulaha iska noqda waxay u sheegeen inuu si degdeg dhagaxaanta uga guro oo ay hore u dhaafaan si ayna mar labaad dhagaxaan iyo ciid ugu soo daadan meeshana way soo dhaafayaan marka ay dhexda xoogay soo yar socdaanna sidaan ka arkayna laamida dhinaceeda raadadkii shilka ka dhacay waxaan arkaynaa in gawaadhidan oo kale ay ka hadheen gaadhiga geedkan ku dhegsan ee kala hadlaadaa shil ayuu ku galay wadadan markaad wadadan maraysana wax walba ood filanaysaa oo shilalkan oo kale inaad gasho ood filanaysaa laakiin ninkan waxuu sheegayaa inaanay rajaynayn inuu shilkan oo kale iyaga ku dhaco xoogay markay soo yar socdaan laftarkeeda dhagax ayaa xagga sarka ka soo dhacaya laakiin wax aadama yeelayo marka yara istaagan ay gaadhiga ka degaanna waxay xagga hoose ka arkayaanba gaadhi ciidana oo iyaga ka sii horreeyey 15 daqiiqo oo meeshan shil ku galay oo ka dhacay markiibana meesha waxa soo gaadhay gaadhi ambulance si uu meesha uga soo guro wixii dhaawaca wixii dhintayna uu soo qaado shilkan ayaana shilalka sida caadiga meeshan uga dhaca oo raggan ay la kulmeen markan sidaynu u jeedna gaadhigu halkan ayuu ka dhacay oo uu karaarkiisa ku waayey iminkana waxaa laga soo gurayaa dadkii ku dhintay sida ay u badan tahay wax meeshan ka badbaaday way yaraanayaan sidoo kale marka laga taga gaadhigan shilka meesha ku galay halkan iminka ay taagan yihiin buur hoosteed weeye dhagaxaan waaweyn ayaana buurtan mar walba ka soo dhici kara oo sida caadiga uga soo dhaca iminkana waxay khatar ku jiraan baadii ay xoogaa sii taagnaadaan maadaama cimiladuna aanay wanaagsanayn in buurtan weyn ay dhagaxaan kaga soo dhici karaan gaadhigooda laftarkiisana bad ayuu ku jiraaba oo naqaska ayaa ka socda musbaarna wuu mudashaaga laakiin haddana xoogay yar markay sii socdaan waxay wadada ku arkayaan dhagax weyn oo buurta ka soo dhacay oo daqiiqada ka hor meesha ku dhacay welina aan laga qaadin tan oo inaad tusaysa inta ay wadadan khatarteedu leeg tahay daqiiqad walba waxaad filanaysaa wax kugu soo dhaca waxaa sidoo kale kasii daranba meesha wadada waxaa maraya gawaadhi waaweyn oo xamuul sida kuwaasoo wadada iyadoo dhuubnayd marka horeba sii dhuubaya oo cidhiidhi ka dhigaya sida aynu gaadhigan iminka horteenna yaalla ka arkaynana dhagax ayaa muraayadda hore kaga dhacay oo sidaa u galay marka haddaba laga hadlayo dalka Pakistan waa wadan ku caana buuro aad u dhaadheer 4 buurood oo ka mid ah 14 buurood ee adduunka kuwaasoo dhererkoodu ka badan yahay 26,000 oo feet waxay ku yaalaan deegaankan ay imika marayaan raggani sidaa darteed markastaad socoto waxaad u baahantahay samir iyo weliba taxadir aad u fara badan
darawallada gawaadhida wadaana waa inay noqdaan darawallo khibrad leh. Wadooyinka buurahan ku yaala mar walba inay qoyan yihiin waa wax iska caadiya, waayo roobabka ayaa si joogta uga da'a. Sidaa darteed badanaa ma arkaysid wadooyinkan oo qallalan. Sidoo kale dhanka kale, wadooyinka ku yaala buurahani aad ayay u qalqallocsamayaan, waxaanay kugu sababayaan inay dacri ku qabato aad matagto sida uu ninkan imika u matagay oo kale. Haddana xoogay markay gaadhiga soo raacaan, taayirkooda ayaa banjaraya, waana loo buuxinaya mar labaad, iyagoo xoogaa yar oo kala soo soconaya. Isla markiibana waxay la kulmayaan waddadii oo xidhan. Laba gaadhi oo waaweyn ayaa isku dhaafaya. Labada gaadhi mid ka mid ah ayaa meeshii soo mari kari waayaya oo la caawinaya. gaadhigana tirqiyo tubaas ayaa lagaga saarayaa sidaan u jeedno oo uu soo dhaafayaa. Haddana waxaa la yaabo markay gaadhiga dhaafaan ee in yar oo kale ay sii socdaan, waxay la kulmayaan shilkii labaad mise kii saddexaad. Ambalaas ayaana dhinac cararaya. Weliba qaybtan waddada imika ay marayaan qaybihii ugu khatarsanaa maba aha, waa meelihii hore oo meelihii ugu khatarta badnaa weli way u hadheenba. sida aynu halkan uga jeednana ninkani waa uu xanuunsaday mar labaad, isagoo caloosha ay xanuuntay. waxaanu sheegayaa in waddadan inaad marta ay u dhiganto inaad naftaada khamaar ku ciyaarayso oo kale. laakiin haddana sidaasay tahay waxa uu sheegayaa in meelo fara badan oo aad u qurux badan ay arkayaan markay waddada dhinac marayaan oo buurahan ku yaala. intaa kadib markay waqti fara badan soo socdaan, waxa ay gaadhaysaa habeennimadii. sida aynu halkan uga jeednana tuulooyinkan ayay marayaan. 12 saacadood ay soo socdeen, maadaama ay 12 subaxnimo soo dhaqaaqeen. iminkana waa 12 habeenimo. habeenkiina udheelkan yar ay seexanayaan. subaxii markay soo toosaan, ninkii darawalka ee gaadhiga u waday, isaga laftarkiisu way ku adkaanaysaa inuu waddadan ku wada gaadhi. sidaa darteed rakaabka ayuu ka mid noqonayaa. darawal kale ayayna soo kaxaysanayaan oo waddadan isagoo khibrad u leh. kamaradiisina xagga hoose gaadhiga ayuu ku dhajisanayaa. intaa kadibna way soo dhaqaaqayaan, iyagoo qaybihii ugu khatarta badnaa ee waddada geli doona imika. qaybtan waddada marka la marayo ma fududo in gaadhiga lagu wado. sidaa darteed waxaan arkaynaa raggani waa rag muslimiin oo Bakistaaniya, bisinka ay sii qabsanayaanba. sida aynu arkayna waddada ay marayaan waa waddo aad dhagaxaan uga buuxaan oo jarar ah. wax hareerahaaga oo ka qabanayaan ma jiro haddii gaadhigu halkaa kaala dhaco xataa. sida aynu halkan uga jeedno, waddadan marka la marayo in waddo la marayaba lama moodo, buuro inaad dul socota ayaa loo haystaa. sidaasay tahay weli qaybihii ugu khatarta badnaa miyayna gaadhin. hadda waa waddada sidan u eg ayna weli khatartii gaadhin oo meelihii bilowga ay marayaan. ninka darawalka ee gaadhigan wada waxa qasab ku ah in mar walba waddada iska eego, maadaama waddada yar uu maraya buurta dusheeda ay ku taalo. dad fara badanna ay nafooga ku waayeen, oo xataa sida uu ninkan sheegay mararka qaar aad ka arki karto lafaha dadkii meeshan hore uga dhacay. sida aynu halkan ka arkayna qaybtan uu marayo imika waa jar. gaadhiga iyo buurta jarkeedana wax u dhexeeya ma jiro. gaadhigu haddii uu hal mar sidaa u yaro leexdo, jarkaas ayuu ka duulayaa. sidoo kalena sidaan aragna waddadani aad ayay u dhuuban tahay. gaadhigu inta uu marayo waad ka arki kartaaba kamarada. jarka iyo gaadhiga waxba ma dhexeeyaanba, dhagaxaantaa yarar ayaa u dhexeeya sidaynu arkayno. qaybtan marka la marayana waxaad ka arkaysaa dadka badankooda inay cabsanayaan. markaaynu ka eegno dhanka sare ee daroonto qabanayso, waddada inta ay dhuubnideedu leegtahay ama ballaceedu leegyahay baad ka arki kartaa. iminka meelahan oo kale waddaba lama moodo, layn yar oo lugta loogu talagalay baa la moodaa. halkaasaa gaadhi la marinayaa. ninkan youtuberka isaga wuxuu bilaabay inuu cabsado. dabcanna qofka gaadhigan saaran inuu cabsado wuu ku qasban yahay, waayo war ma haysid mar uu ninka darawalka gaadhiga wadaa uu mar keliisa u leexin karo. darawallada gawaadhidan wadaa waa darawallo calool adayg way dhameeyeen sidaad ka arkayso, maadaama darawalkii hore la bedelay oo uu ku dhiiran waayay inuu isagoo gaadhiga kaxeeyo. ninkan imika gaadhiga wadaa waa nin waddadan hore u maray oo taxadir aad u fara badan muujinaya. markana gaadhiga way kasoo yardegayaan. meelaha kale uu kamarada kusii qabanaya halka ka arkayno waa wadooyin halkan kasii dhuwanba halkan iminka ay marayeen. sidaa darteed khatartu inta ay leegtahay ayuu ninkani muujinayaa. dadka deegaanadan degani waddadan waxay u yaqaanaan waddada qubuuraha, maadaama dadka ku dhintay ay tiro beeleen. sidoo kale ninkani waxa uu inoo sheegayaa in wax signal aanu halkan ka jirin, oo haddii ay wax kugu dhacaan cid kaa soo gaadhaysa amaad wacaysa ay adag tahayba. sida uu gacanta ku fiiqayana buurahaas iminka halkaa ka soo muuqda ayay dul mari doonaan, oo waddadani gebigeedu ay wada dul marto. kadib markay soo dhaqaaqaanna gaadhigooda ayaaba yara xumaanaya, maadaama cimiladu ay kasii darayso. laakiin raggii Bakistaanida ayaa hagaajinaya, hore ayayna uga soconayaan meesha. markana waxay soo gaadhayaan meel meeshii hore ka daranba, oo gaadhigu la moodaba inuu shaag kala dhacayo jarka. ninkana wuxuu ku qaylinayaa inuu rabo inuu halkan ku joojiyo safarka, maadaama cabsidu marba marka ka dambaysa ay sii kordhayso. wadnaha ayayna farta ku hayaan marba marka ka dambaysa, gacmahooduna dhidid fara badan ayaa ka imanaya.
waxay ugu daran tahay wadadan marka la laabayo ama goolad lagu soo beegmo maadaama wadadu ay aad u dhuuban tahay gooladaas sida looga laaba aad ay u adkaanaysaa iyadoo weliba sidaas ay tahay oo wadadu ay sidaa u dhuuban tahay wax kaa hor imanaya gawaadhi kale oo iyagana aad gooladahan aad ka dhuuban iskaga hor iman kartaan sidaa darteed ayuu ninka darawalka gaadhiga wada ugu sii digayaa oo hoonka u garaacayaa marka meel goolada uu ka soo laabayo si gawaadhida kale ay uga joogsadaan markana sidoo kale waxa wadada ku soo dhacay dhagaxaanta aan hore u soo aragnay kuwaasoo wadada xidhaya ninkii Bakistaaniga gaadhiga saarnaayana ka qaadaya mar labaad gaadhiga ay saarnaayeen ayaa wax yar noqonaya sida darteed waa la yara joojinayaa raggan waxay ku fiican yihiin gaadhiga nimka ay saareen waa gaadhi yar oo jiiba bal ka waran gawaadhidii waaweyn ee ka hor yimid markii ay soo socdeen hore markana uu yara istaagayaan maadaama droontii ninkani ay si automatic isku kaxaysay dhagaxayna ku dhacday laakiin uu yara istaagayaan oo way soo qaadayaan si aanay uga lumin waxyaabo ay duubtay haddana wax yar oo kale markay soo socdaan gaadhiga way ka degayaan si ay u eegaan wadada ay sii marayaan oo marba marka ka dambaysa sii dhuubnaanaysa wadooyinkan dushoodana buuraha ku yaala sida aynu hore usoo sheegnay dhagaxaanta saaran way soo daadanayaan oo waxay kusoo dhacayaan wadada halkan iminka ay taagan yihiinna waa meel ay dhagaxaanta dusha kaga soo dhaceen oo wadaduna aad uga dhuuban tahay dibna uma noqon karaan laakiin sida uu ninkani kusoo celcelinayo waxay jeclaan lahaayeen in safarkan sida ugu dhaqsaa badan ay u dhammaystiraan maadaama khatartiisu ay aad u badatay laakiin haddana way soo soconayaan waxayna marka soo gaadhayaan biriishkan yar ee meesha laga dhex sameeyey kaasoo aynu arkayna in dhagaxaga sare uu kaga soo dhacay oo dhexda ka deeqsamay in la muraano ay khatar tahay sidaa darteed waxay kusii soconayaan dariiqa kale ee kusii beegan oo ah isaguna mid aad u sii dhuuban inkastoo ninkan uu ka codsanayo raggan inay gaadhiga istaajiyaan laakiin haddana waxay u sheegeen inay khatar tahay oo xagga sare ay dhagaxaan kaga soo dhacayaan sidaa darteed way ka diidayaan laakiin waxay soo gaadhayaan meeshan yar ee kale ee guryaha yaryar ku yaalaan halkanna jiibku istaagayaa maadaama jiibka inuu maraa ay aad u adag tahay iyagu inay soo lugeeyaan ayay noqonaysaa waxaanay la yara fadhiisanayaan ragga meeshan yar ku nool oo waqti fara badan deganaa intaa ka hadhay safarka inay lugeeyaan ayaa qasaba si ay u gaadhaan meesha ugu dambaysa ee wadadan ay tegaysa ay rabaan inta waa dhay waqtigaas si lugeyn doonaan waxay gaadhaysaa ilaa 2 saacadood ama 3 saacadood oo ay buuraha sii dhex mari doonaan iyagoo lugeynaya halkan imka ay marayaan waa meel aad u qabow maadaama buuraha dusheeda ay tahay temperature-keedu waa 2 digrii ayuu marayaa dadka halkan degan maadaama ay la qabsadeen sababadoodu ay ka ballaaran yihiin kuwa imka raggan iyo sidaa darteed iyagu waxba kuma noqonayaan dadka halkan degan cimriga ay gaadhaan waa cimri aad u sareeya sida uu ninkani sheegay haddii qofku 80 ama 90 uu ku dhinto waxa la oranayaa qofkaas isagoo da'yar buu dhintay 100 iyo dheeraad bay ku dhintaan inta kadib 30 daqiiqo ay soo lugeynayeen laakiin wax sidaa u sii badan may soo jarin maadaama buuro la korayo waxaana ka hor imanaya raggan fardaha wata ee buurahan ka shaqaysta kuwaasoo fardahan ku saaraya lacagna ka qaadanaya waxaana ka qaadayaan calaa qof 2500 oo rubi maadaama 2 qof yihiin 5,000 bay ka qaadayaan oo $760 u dhigantaa meesha ugu dambaysa ee safarkoodu yahay inay ku tegi doonaan oo inay kusoo noqon doonaan iyadoo sidoo kale sidii gaadhiga oo kale fardahan ay yihiin maadaama meel jarra la marayo farasku haddii uu mar keliya cillad yaro dareemo jarka ayuu kaala dhici karaa laftarkiisu laakiin waxay ku baxsanayaan ninka faraska leh ayaa wada oo faraska hagaya sidoo kale fardahan waxa loo baahan yahay in la dejiyo marba marka ka dambaysa maadaama loo baahan yahay in dhaqaaqina faraska tushiisa laftarkiisa way ku sii dhexmoonayaan dhul baraf ayna u soo galayaanba oo buuraha dushooda baraf ay sidoo kale leedahay marba marka ka dambaysa wadada ay sii marayaan way sii dhuubnaanaysaa ninkanna waxa uu sheegay haddii maalin aad soo booqato si aad wadadan u marto geesinimo dheeraada ay u baahan tahay beentina maaha sidaynu arkayno qaybta imka ay marayaan oo keliya haddii aad eegto halka imka farasku ka leexanayo waxaad is odhanaysaa aboodiga jarka ka dhacay safarkan raggan waxa uu ku qaatay 24 saacadood laakiin sida uu sheegayo dalxiiskan laguma tilmaami karaba wax dalxiisa waa dalxiisyada hal mar noloshaada kusoo maraya kaasoo khatartiisa iyo weliba xamaasadiisa watay farduhu markana waxay soo galeen baraf iyo dhoobo is haysta waanu siiban karaa farasku ugu dambeynta markay soo socdaan farduhuna ay soo dahlaan waxay soo gaadhayaan meeshii ugu dambeysay ee safarkooda uu ku dhammaanayay oo wadadan khatarta badanna ay ku dhammaato qolkan yar ee laga dhex dhisay barafka ayaan raggan Bakistaanida ugu soo dhexgelaya oo la fadhiisanaya shaaxna kula cabaya sidoo kalena maadaama ay soo qoyeen farihiina ay soo dhagaxoobeenba halkaas ay isku yara diirinayaan maryahooduna way soo qoyeen wayna isku qalajin doonaan intaa in leeg oo sii socdana way sugaysaa inta imkaan daawanay haddaba saaxiibayaal ninkani ugu dambeyn fiidiyoga xagiisa dambe waxa inagu tusayaa dariiqa ay soo mareen oo animation laga sameeyey muuqaalkuna halkaas ayuu ku eeg yahay haddaba haddii markii ugu horeysa aad daawanaysay ay tahay waxaan ka codsanaa inaad subscribe noo saarto muuqaalkana like ta saareed baad mahadsantiin